kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warkii caalamka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona barnaamijyo ka dhacay maanta magaalada Muqdisho. wasiirka amniga Jubbaland oo sheegay in ay dagaal la gali doonaan ciidamada ku sugan magaalada Balad Xawe ee dawladdu ay geysay. ciidamo ka tirsan maamul goboleedka Galmudug oo maanta gidood sameeyay qodobada iyo qodobo kale aad ku maqli doontaan kusoo dhawaada warkii oo dhan. aanu ku bilaabanay barnaamijyo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxa la soo sheegay in ay ka dhasheen rabshado. barnaamijyo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxa la soo sheegay in halkaasi ay maanta ka dhacay barnaamijyo ay dadku ku dalbanayeen in doorashada Soomaaliya ay la boobo. barnaamijyaashan oo ku qaylinayay in dooni mayna dagaal sokayay in doorashada la boobo ayaa waxa isku soo baxeen iska banaadir ee magaalada Muqdisho lambar 4 iyo waliba Soobe halkaas oo qof shacab dhar shacab wata oo dadkii rasaas kala daaray sida aad kaamirada ka arkaysaan. ala soo sheegay dadkaas oo badnaa dumar iyo waliba dhalinyaro ayaa waxay halkaasi ka dhigeen barnaamijyo nabadeed iyagoo wata boorar kuwaas oo ku doonaya in hadal laga galo doorashada Soomaaliya iyo iyagoo ku qaylinayay dooni mayna doorashada la boobo iyo ereyo kale. qofkan shakhsiga oo caan ka ahaa magaalada Muqdisho saa u jeedana baastoolada wata ayaa waxa uu rasaas kala daaray dadkii rayidka ahaa ee barnaamijyada isagoo adeegsanaya baastoolada. waxaa la soo sheegayaa in ay dadkan barnaamijyada ay barnaamijyada sii wateen iyada oo markii dambe halkaasi ay soo galeen ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya iyagoo oo xilxidhay wariyaal halkaasi ku sugnaa oo ay kamid ahaayeen wariyaal ka tirsan ilaacada goobjoog ee magaalada Muqdisho. sabtida soo socota ayaa la filayaa inay barnaamijyo ka dhacaan magaalada Muqdisho halkaas oo la soo sheegayo inay qabanqaabadeediba hadda wali socoto iyadoo maanta bari ee sabtida la soo sheegayo iyo waliba maalinta Axadda inay barnaamijyo xooggan ka dhici doonaan magaalada Muqdisho ay ka qayb gali doonaan mucaaradka musharaxiinta ee ku sugan magaalada Muqdisho. wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in uu dagaal la gali doono ciidamada dawladda Soomaaliya ee ku sugan magaalada Balad Xawe ee gobolka Gado. wasiirka amniga Jubbaland oo warbaahinta kula hadlay magaalada Balad Xawe dureedkeeda halkaas oo isagoo dharka ciidanka gashan uu sheegay in uu dagaal la gali doono ciidamada halkaas ku sugan oo uu sheegay inay ku soo xadgudbeen wasoo hadalka u dhigay ciidamadii Jubbaland ee halkaas ku sugnaa. waxa uu eedeemo culus u jeediyay wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay inuu iscasilo. waxaan ka codsanayaa inuu iscasilo oo uu ku fashilmay ammaankii iyo wax ka qabashadii dalka Soomaaliyeed wasoo hadalka u dhigay Cabdirashiid Janan. waxa uu intaasi ku daray in madaxweynaha Soomaaliya muddadiisii ay dhamaatay taana loo baahan yahay in uu ka tanaasulo inta yar u dhiman madaxweynaadkiisa. wasiirka amniga Jubbaland oo ku labisan dareeska ciidamada ayaa waxa uu sheegay in maamulka Jubbaland uu dhamaan qabsan doono deegaanada Jubbaland ee gobolka Gado kaas oo uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay ciidamo ku soo taabusay halkaas oo uu sheegay inay dhawaan dagaal la gali doonaan. ciidamo ka tirsan maamul goboleedka Galmudug ayaa waxa ay godood ka sameeyeen magaalada Galinsoor ee gobolka Galgaduud. ciidamadan militariga dawladda Soomaaliya isku jira maamulka Galmudug ayaa waxa ay xirteen wadooyinka u dhaxeeya magaalada Galinsoor iyo Cadaado halkaas oo maanta la soo sheegay in ay gabi ahaanba aysan wadadaas u shaqeynayeen iyaga oo sheegay in ay mushahar laan ka cabanayaan. ciidamadan oo gawaarida dagaalka halkaasi soo saftay ayaa waxa la soo sheegayaa in ay wali wadada u xiran tahay oo ay deen in gaadiidka iyo dadweynuhu halkaas ay isticmaalaan. ciidamadan oo gaaraya dhowr boqol ayaa waxay ka cabanayaan mushahar la'aan soo wajahday. ma jirto cid ku baxday ilaa iyo hadda waxaana la soo sheegayaa in waan ay socoto. wasiirka amniga ee maamul goboleedka Galmudug oo u xilsaaran ciidamadaasi ayaa waxa la soo sheegay inuusan wali ka hadlin. waxaana odayaasha deegaanku ay shaaca ka qaadeen in ay doonayaan in ay xaliyaan ciidamadaasi iyadoo oo dawladda Galmudug aysan wali ka hadlin ciidamadaasi gadooday ee halkaasi ku sugnaa. guud ahaan warkii caalamka ka socoteen channelkan ku leenahay abshir shukr YouTube waa naga intaas nabad geliyo.